habeen wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo khiyaarta kala duwan ka soo qayb gashay kulankan marka xigta waxaan marlabaadka aan u mahadnaqayaa bahda geeska oo aynu marti u nahay soona qaban qaabisay kulankan amba kulan aqooneedkan aynu kaga hadli doono dhaxalkii siyaasadeed iyo doorkii uu hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga uu ku lahaa sooyaalka dimuqraadiyadeed ee Kenya daqiiqadaha soo socda waxaan doonayaa in aan isdul taago qodobo dhowr ah oo iftiiminaya muhiimadda ay leedahay in dhaxalka Raila Odinga aynu ka hadalno waxyaalaha aynu ka faa'iideysan karno amba aynu ka faa'iidi karno inta dambana aynu ka dhigano discussion iyo dood wadaag ka abuuranta qodobada aan doonayay inaan isdul taago qodobadu ma aha qodobo research fiican oo weyn aan ku soo sameeyay laakiin waa isdul taag guud iftiiminayana muhiimadda ay leedahay in dhaxalka siyaasadeed iyo doorka uu Raila ku lahaa dimuqraadiyadeynta wadankiisa sidaad wada ogsoontihiinba maxamedna waa taabtay baan filayaa Raila marka laga hadlayo badanaa dadku waxay ka hadlaan guuldarooyinkiisa siyaasadeed ilaa heer ay ka gaadho inay ka maadsadaan waa aabaha fashalka iyo guul darrada waa nin ku fashilmay inuu xilka wadanka uu sareeyo gaadho waa nin aan siyaasadda iyo qaabka wadanka uu salaysan yahay fahmin una daliishadaan marmar inay ka badiyeen dadkii isaga mar doonayay inay ku dhisaan kursiga madaxtooyada marka jaanibkaas awoodda la saaraa laakiin jaanibkan awoodda la saarin waxa weeye dhaqdhaqaaqa isagoo hogaaminayay amba roolkiisii muxuu ku yeeshay in wadanku dimuqraadiyadooba amba u guuro hayaanka dimuqraadiyadeed uu ka soo guuro talis keligii talisa oo xisbi kaliya uu ka jiray aniga shakhsi ahaan markii ugu horeysay Raila aan maqlo amba aan raadiyo sooyaalkiisa waxay ahayd 2007 bariga oo aan jaamacadda arday ka ahaa bilowna aan ahaa marka qolka waxaan wada deganeen jaamacadda amba hostelka amba daakhiliyadda tiimamkiina soo maray Borden laba nin oo midna Kenyan yahay midna Tanzanian yahay laakiin Raila ay isku qoys yihiin amba isku qabiil yihiin Luwa amba Kalenjin sida loo yaqaano bariga waxa jirtay amba ololuhu meel xasaasiya maray doorashadii Kenya ee 2007 oo Raila ka ahaa musharaxa mucaaradka uu la tartamayay Mwai Kibaki isla sidaana waxa Mareykanka ka dhacaysay doorashadii Barack Obama uu ugu tartamayay xilka murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga marka aad bay ula socon jireen dhaqdhaqaaqa iyo ololayaasha marka waxyaalaha faniga ay igu oran jireen waxa kamid ah Kenyana waanu ka arrimaynaa dunidana waanu ka arrimaynaa iyagoo u jeeda labadan inay soo qoys ma yihiin markaas anigu aan meelaha BBC oo ka maqlay ma jiray laakiin markaas igu horeysay inaan bar raadiyo Raila kulli ciidan aqoon way kooban tahay hadda ma doonayo sooyaalkiisi iyo inaynu ka wada sheekayno intiina halkan fadhida iyo intayna daawan doontaaba way ka dheregsan tahay ciduu yahay laakiin waxaan doonayaa maxadaad muhiim ah oo sooyaalkiisa ah mawduucana khuseeya inaynu istul istaagno aan ku horeeyay maxay muhiim u tahay inaynu uga hadalno amba dad aan Kenyan ahayn waxay muhiim tahay inay uga hadlaan dhaxalkii dimuqraadiyadeed ee Raila Soomaali ahaan amba Soomaaliland haday nahayna maxay muhiim u tahay runtii dhowr qodob ayaa ay muhiim u tahay in aynu istul taagno dhaxalkiisa dibna aynu u diraasayno waa marka koobaad Raila wuxuu ahaa qof aad u firfircoon 55 sano muddo ku dhowna siyaasadda Kenya qayb uu ka ahaa qaybo kala duwanna waa ka soo qaatay
movementadii kala duwanaa ee wadanku ugu gudbayay amba hayaankii kala duwanaa ee Kenya ay ugu gudbaysay dimuqraadiyiintana buddig ayuu u ahaa kaalimo kala duwan baa haba ciyaaraya marka wuxuu ahaa qof halganka dheer ee shacabka Kenyaanku ay galeen ay kaga soo baxayeen nidaamka xisbiga kaliya kuna gaadhayeen nidaam ahsaab badan oo doorashooyin ay dhacaan doorashooyinka iyo quality-goodu kolba heer had taagnaadaane runtii waxa uu ahaa qof buddiga sambalna uu ahaa istaragalka iyo halganka dheereed shacabku uu soo magalay mar labaadka Raila wuxuu calaamad u yahay nabadoonnimo in siyaasadda iyo halganka siyaasadeed iyo loolanka qofka hogaamiyihii nabadoonnimo uu ku waajaho oo mucaaradnimadu aanay ahayn colaad iyo jabhadeyn iyo madagaal in loolan nabadeed aad geli karto dadka aad abaabuli karto aad kicin karto isku dubaridi karto adigoo u hagaya xagga dawlad dhiska iyo dimuqraadiyiinta marka sooyaalka Raila hadii dib aynu u eegno waa ku xusan yahay nabadoonnimo wuxuu ku xusan yahay inuu tartanka qaab nabadeed uga qayb galo isagoo karayay wadanku ka soo jeedanaana wadan yahay wadan kala qaybsanaan badan oo ethnicity ku salaysan uu jiro in la xoqo oo heer ay gaadhiso colaad laakiin nabadoonnimadaas uu ku caan yahay waxay kaloo muhiim u tahay Raila wuxuu u yahay role model siyaasiyiin fara badan oo Afrikaan ah maadaama aan Afrikaan nahay dawlad dhiskeenuna uu la mid yahayba amba maraaxil kala duwan oo dawlad dhiska Kenya ay soo qaadatay muhiim bay u tahay siyaasiyiin badan oo Afrikaan ah ma dhalinyaro inspiration buu u ahaa roolka Raila waxa kale oo muhiim ay u tahay in aynu dib u eegno dhaxalka sooyaal Raila ka tagay inuu bedelay qaab dhismeedkii mucaaradka Kenya hadii aad dib u raacdaan amba intiina la socota badana doorashooyinka Kenya markay ay u gudubtay nidaamka axsaab badan baa tartami jirtay markii koobaad ee Raila noqdo figure mucaarad oo national 1997 bay hayd inta ka dambeysay doorashooyinka waxay u dhaxaysay laba coalition xagga dawladda ah amba isbahaysi xagga dawladdu ay hogaaminayaan cidda markaa talada haysa iyo isbahaysi xagga mucaaradka oo Raila uu hogaaminayay coalitionadaas waxay hoos u dhigeen tensionka amba xasaasiyadda ay leeyihiin qabaa'ilku amba qowmiyaduhu in coalition isku mid uu leeyahay musharax kaliya musharaxana ay bari taarayaan dad badan oo kala duwan oo wadanka oo dhan ka soo jeeda marka qaab dhismeedkii siyaasadda Kenya ay u dhisnayd isbedel buu ku sameeyay wuxuu hogaaminayay mucaaradad xilkasa in dheer garada u turaysa iyo turaala kale systemka wadanka ku masalaysan marar badanna wadanku ku khatar galay ka soo celiyay doortay inuu la negotiate gareeyo oo dadka maamulka walow dhaliilo badan oo xagga dambe aynu ka arkaynaa ay ku dul hogantahay amba dadka qaar ay qabaan sooyaalka dimuqraadiyiinta ay Kenya ugu guurtay kama duwaneyn sooyaalka wadamo badan oo Afrikaan ay ugu guureen nidaamka axsaabta badan leh oo faktarro badan baa saameeyay amba baritaar u ahaa amba fududeeyayba inuu wadanku u guuro dimuqraadiyiinta sideetamaadkii xukuumaddii Daniel Arap Moi waliba 28kii waxa ay xidhxidhay dad mucaarad oo badan dadka ay xidhxidhay waxa ugu horeeyay Raila oo 8 sano xidhnaa waxay ku eedeeyeen khiyaanada qaran waxay sabab u ahayd isuday military amba iskuday afkambi aan ilaahdo ciidamada cirki ay isku dayeen inay taliska afrogaan walow sheegashada dawladda aan evidence badan aanay lahayn laakiin marmarsiihii ugu badnaayay mucaaradka lagu xidhay ahayd marka waa markuu wadanku u guuray wadan xisbi kaliya aqoonsan oo aan axsaabta kale ay ka tahay mamnuuc laga soo bilaabo sideetanaadkii Kenya wadamada Afrikaanka u badan ay ka jireen movementiska iyo dhaqdhaqaaqyada
u dhaqdhaqaaqa inuu wadamadaasi ay u guuraan nidaamka xisbiye badan qayb ay ka ahayd ilaa ay ku guuleysatay 1992 xilligaasoo dastuurkii uu mooy bedelay dib loo bedelay oo la ogolaaday inay dadku dhisan karaan axsaab kala duwan doorashadii u dambeysayna ay ma dhacday xilliyada markaa waa xilliyada isbedelada waaweyn ay ka dhaceen dunida qaaradan aynu ku noolnahayna ay ka dhaceen una abuurmayna systemkan siyaasadeed ee dunida ka arrimaya ilaa maantana taagan haddana uu ku socdo isbedelada badan sagaashanaadkii markaa waxa dhacay in wadamo badan oo Afrikaan ah ay doorashooyin qabtaan una guuraan systemka xisbiyada badan ilaa heer 10kii sano 1990 ilaa 98kii $3 oo $2 kamid ah wadamada Afrikaanka ay ka dhacaysay doorashooyin nidaamka xisbiyada badanna ay ogolaadeen heerka doorashooyinka haba ku kala duwanaadaan waxa jiray wadamo dimuqraadiyado sal adag leh oo ka soo bilaabmay xilligii gobonimada qaateen sida Mauritius iyo Botswana iyo wadamo ku soo biiray fufka dimuqraadiyadeynta dimuqraadiyadoodina gaarsiiyay inay xasiloonaato oo taliska iyo maamulka la wadaago laguna kala wadaago nabadgelyo iyo xasilooni Senegal iyo Namibia ayaa tusaale looga soo qaadan karaa marka sagaashanaadkii waxa lagu tilmaamaa amba aqoonyahan badan oo Afrikaan ay ku tilmaamaan dib u xoreyntii labaad ee Afrika maadaama dib u xoreyntii koobaad ama gobonimadii koobaad ay ahayd markii ay calanka qaateen gobonimada labaadna waxay qoraayaal badan ay ku tilmaamaan inay tahay xilliga wadamadaasi ay u guureen dimuqraadiyadeynta amba inay ogolaadaan amba dasaatiirtooda ay la jaan qaado nidaamka xisbiyada badan marka Kenya kamay duwaneyn wadamadaas ay la duruuf ahayd laakiin hayaankeedu wuxuu ka duwanaa waxayaan agajugleyn badan iyo xiritaan badan iyo caburin badan ay la soo koosatay istaragalka iyo halgankaana Raila hogaamiye ayuu ka ahaa duruuftii markaa ogolaatay in wadamadaasi ay u guuraan laba loo kala qaadi karaa oo Kenya ay ka mid tahay waa duruuf gudeed oo aynu ku tilmaami karno duruuf wadanka dhexdiisa ka jirta iyo duruuf dibadeed oo atamaynka waxaad xasuusataan amba aad ogtihiinba intii uu jiray dagaalkii qaboobaa wadamada ugu badan ee Afrikaankiina xilliyada ay gobonimada qaateen inta ugu badanna ay ka jireen amba ay ka jireen batalisyo kaligii talisa amba ciidamadu ay ka arriminayeen amba xisbi kaligii ka arriminayay waxa uu ogolaaday waa dagaalka qaboobaa bay ahaayeen marka wadanku wuxuu heli jiray inuu hadii reer galbeedka iyo Mareykanka iyo ay istiidaan inuu bariga uu guuro halkaana uu ka helo taageero dhaqaale iyo taageero ciidan marka in taliyihii amba hogaankii lagu hayo taliska maamulka markii uu dagaalkii qaboobaa meesha ka baxay reer galbeedka oo Mareykanku hogaamiyana nidaamkii duwaliga ay madax ka noqdeen waxa bilaabantay marka in wadamadii Afrikaanka ahaa amba wadamadii kale dunida reer galbeedku ay ku qasbaan amba ay ka dalbadaan in ay nidaamyadooda iyo dhismaha dawladeed ay ka dhigaan mid xisbiye badan leh furfuran arrimaha xuquuqul insaanka iyo xuquuqda bini'aadamku ay noqoto wax miiska yaalo oo laga wada xaajoodo arrimahaasina marka waa arrimaha wadamada caawiyay amba ka qayb qaatay baritaarka dimuqraadiyeeshanka oo ay koow ka tahay caawimada ay reer galbeedku wadamada siiyaan oo shardiyada kamid ah waxa inuu wadanku wadan dimuqraadiye yahay waxa kale oo iyaduna mar kasta sagaashanaadkii jiray in bulshada Afrikaanka gaar ahaan ay yeelatay dabaqad dhexe oo xoogan dabaqada dhexana culimada cilmi ijtimaaci iyo siyaasaddu waxay yiraahdaan waa dabaqada hogaamisa isbedelka talis kasta hadii oo dictatori hadii uu dabaqada koriyo waa dabaqada shaqaysata dakhliga fiican hesha waxbarasho jaamacadeed heshay waa dabaqada isbedelka iyadana wadka u ah waxaad xasuusan kartaan fufkii carbeed amba Rabiic al-Arabi dabaqada badana isbedelka qaybta ka ahayd waa dabaqada dhexe weeyaan aan ku
waxay doonayaan iyo doodooda aanay meel gaar ku istaagayna ilaa ay taliska qayb ka noqdaan weeyi marka xilliyada dabaqad dhexe oo Afrikaana wadamada Afrikan u jeeda oo culus ayaa samaysantay waxa iyaduna ku lamaanayn mashaakilaad dhaqaale oo dhaqaale xumo baahsan oo talisyadii dictatorship-ka ahaa ay fulin kari waayeen amba ay qumin kari waayeen baahiyihii shacabkooga marka hadday dhaqaale xumo baahsan dhacdo badana maamulka iyo rejiimku waa isbedela waxa tusaale looga soo qaadan karaa dhaqaale xumadii ka dhacday South Asia oo taliskiisu harta meesha ma kaga baxay marka dhacdooyinkaasi dhacdooyin ka dhacay bay ahaayeen wadamada Afrikaanka Kenyana intaasiba way ka wada dhaceen marka Raila dhacdooyinka ay Kenya wadamada Afrikaanka la wadaagtay madhigeeda wuxuu isagu hogaaminayay dhacdooyinkii gudaha ka dhacay waxaana lagu tilmaami karaa inuu dimuqraadiyadeynta iyo dawladnimada maanta Kenyaanku haystaan inuu aabbo u ahaa amba qayb libaax leh ma ka qaatay waa marka koowaad wuxuu hogaamiyay halgankii dheeraa isagii aabihiiba ay ugu jireen in wadanku uu xisbiga qura ee kaanu uu ka gudbo oo u gudbo nidaam xisbiyo badan 92 bay aasaaseen jabhadda Ford oo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeynta wadanka Kenya oo aabihiiba markaa hogaamiye ka ahaa Omolo Odinga waxaana gudoomiye ku xigeenka ahaa Kenneth Matua oo isna kuuya xisbigaasi markaa waa kala jabay waana dabeecadda axsaabta ka abuuranta bulshooyin la qabaa'il kala duwan amba qowmiyad kala duwan maadaama gudoomiye ku xigeenkuna uu ahaa nin kuuya isuna arkay bariga inuu isagu kaga haboon yahay Omolo Odinga inuu hogaamiyo dhaqdhaqaaqa oo xisbi isku bedelay labay kala noqdeen faragelintii dawladuna runtii kamay maqnayn maadaama mooy bariga musharax ahaa waxa kale oo Raila ku suntana ay muhiimna tahay in taariikhdiisa la xuso reformskii kala duwanaa ee wadanka ka dhacay oo qaarna hoggaan ka ahaa qaarna uu ahaa u dooda in reformkaasi ay ka hirgalaan wadanka waxa ka koow ahaa constitutional reformkii 2010 dhacay oo Raila bariga uu ahaa prime ministerka reformkaasi waa ka ogolaaday in awoodda laga soo qaado centerka oo bariga wadanka wuxuu ahaa regions buu ahaa Western Rift Valley Nyanza Northeastern oo laga dhigo awood countiyada iyo degmooyinka loo dhaadhiciyo waa awood qaybsiga amba dawladnimada Kenyaanku maanta waxay ku dhisan tahay weey waa 47 county kastana governor leeyahay marka countigii in miisaaniyadii degmada la gaarsiiyo oo dadku ay ismaamulaan oo budgetkooda maamulaan oo dawladdu ay kabto oo lacagtii ku hakanaysay centerka la gaarsiiyay degmooyinka iyo dastuurkaas oo lagu tilmaamo dasaatiirta ugu horsocodsan Afrika gaar ahaan gobolkan aynu ku naalno Raila wuxuu ka ahaa hoggaan uu doodayay isagaana fulinayay maadaama prime minister uu dawladii wadaaga ahaa waxa kale oo Raila u dagaalamay sooyaalkiisina aad uga muuqday calaamado dhowrana laga heli karaa inuu doodi jiray sinaanta cadaaladeed Kenyaanka taasina ay sabab u ahayd backgroundkiisa waxbarasho oo sidoo wada ogsoontiiba wuxuu ku soo bartay East German oo bariga communist ahaa marka inay dawladdu ay qayb libaax la ka qaadato qaybinta dakhliga iyo ilaha dhaqaale ee wadanka ayuu caan ku ahaa una doodi ma jiray hogaamintiisu waxay muhiim u tahay inay dib aynu ugu noqono sooyaalkiisii wuxuu sawir kale u dhigay mucaaradkii Kenya san horaba u soo sheegnay oo qayb uu ka ahaa inaan wadanku isku dilin qowmiyad qabiil oo laba coalition oo mucaarad iyo muxaafidi ay ku tartamaan labada coalition mar kastana
wuxuu hogaaminayay mid afartii doorasho u dambeeyay isbahaysiga mucaaradku hogaaminayay marar qaarna wuxuu ahaa xukuumadda ayuu ahaa marka culture-ka dimuqraadiyadeed ee Kenya Raila wuxuu ku leeyahay saameyn iyo raad aad u laxaad leh waxa kale oo Raila uu ahaa kumu koobnayn Kenya laakiin wuxuu ahaa hogaamiye Afrikaan ah Kenya caan buu ka ahaa gobolkana caan buu ka ahaa oo saameyntiisu caan bay ka ahayd Afrika guud ahaanna caan buu ka ahaa Kenya caan buu ka ahaa waxa aad ku garan kartaa maalintuu dhintay baroordiiqdii iyo aaskii loo sameeyay waxa loo sameeyay aaska madaxda ninkiyaan aanu saaxiibanahay ayaa igu yiri waxa geeriyooday madaxweynihii aan weligii madaxweyne noqon marka sida dadku u ixtiraamayaan sida dadku ugu heelan yihiin sida dadku mucaaradkii hogaamiyaasha siyaasadeed ugu meersan yihiin waa nin madaxweyne ah aan laakiin weligii kursiga madaxweynaha aan ku fadhiisan marka hogaamiye Afrikaan ah ayuu ahaa haddaynu Afrikaan nahayna waa muhiim inaynu daraasayno tajaaribta noocaas aynu wax ka faa'iidno goldololooyinkooga aynu ogaano si inagu aynu iskaga ilaalino maadaama isku gobol iyo isku qaarad aynu ku naanlo waxa kale uu ahaa hogaamiye dhaafsan Kenya xilal badan oo ayuu ka qabtay midowga Afrika oo infrastructure-ka iyo integration-ka la xiriira wadamo badanna waa booqday marka hogaamiye dhaafsan ayuu ahaa Kenya pan africanism-kana waa aaminsanaa inay Afrika mid noqoto maadaama aynu nidhi astaamaha iyo saameyntaasuu ku lahaa Raila qaabaynta dowladnimada iyo dimuqraadiyadeynta Kenya waxa iyaduna muhiima inaynu dul istaagno dhowr qodobna aynu ka tilmaamno eedayno fara badan oo lagu eedeeyay hogaamiyaha qof kasta wuxuu leeyahay weaknesses iyo critique Raila loo soo jeedin jiray iyadana waxa muhiim ah in aynu bal dhowr qodob aynu ka tilmaamno waxyaalaha ugu badan ee dadku ay ku dhaliili jireen Raila waxa kamid ah inuu danayste yahay sooyaalkiisana hadii laga baaro waa laga soo helaya marar badan mucaaradku hogaaminayay kiyo mucaaradka hogaana ayaa islam laba cisho kadib xukuumaddu u galaa uu la saxeexda heshiis dawladdu ka mid noqdaa laba sano kadibna waa ka soo booday hadana mucaaradku galaa marka nin boodbood badan oo u dhaxeeya mucaaradka iyo dawladda sanadihii u dambeeyayna dawlad kasta qayb uu ka ah marka waxa Kenyaanku ay ku dacaayadayaan xisbiga aan guuleysan ee laga guuleysto hadana laba sano kadib xukuumadda qayb ka noqda marka qof opportunist ah oo boodbooda oo markasta raadiya dantiisa siyaasadeed ayaa lagu tilmaami karaa oo madaxweynayaashii kala dambeeyay ee Moi oo mucaarad ku ahaa aabihina mucaarad ku ahaa wasiir buu ka qaatay Kibaki uu dhisay isagu taxaalufkii NAK wasiir buu ku ahaa 3 sano kadibna waa kii dhisay xisbigan hadda uu madaxda ka yahay ODM doorashadii 2007 kadibna waa kii coalition-ka ay wada abuureen xukuumadda prime minister uu ka ahaa Uhuru way wada shaqeeyeen handshake doorashadii 2017 muranka badan dhacday sanad kadib waa la heshiiyay oo waa kii Uhuru ka shaqeynayay inuu ma dhiso hadda madaxweynahan imika heshiis bay ahaayeen oo mudaharaadadii kadib xukuumadda qayb bay ku lahaayeen marka waxa lagu eedayaa inuu opportunist ahaa waxa kale oo critique loo soo jeediya kamid ah inuu dynastic politics amba in siyaasaddu ku koobnaato familiyadii halganka iyo dawladnimada Kenya ka soo qayb qaatay oo isagu qoysaska kamid ah ayuu ahaa labada family ugu caansan waa family Kenyatta iyo family Odinga waa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Kenya ilaa imikana labada qoys
laba madaxweyne iyo laba hogaamiye mucaarad baa ka soo jeeday Raila iyo aabihii iyo Uhuru iyo aabihii marka nin ka shaqeeya inay siyaasadda qoysaska siyaasadeed ay sii jirto oo sii joogto ayuu ahaa waana sababihii ugu badnaa la oran karo doorashadii u dambeysay 2022 baa Philips Kobe uu ku guul daraystay waayo madaxweynaha hadda jooga ku guuleystay inuu campaign-kii iyo doodii uu ka raro goobtay taalay oo u raro garab rarato shacaba iyo hogaamiyaal shacab iyo inay haystaan dynastic politics-kii amba dadkii qoysaska caanka ka soo jeeday marka Ruto wuxuu iska dhigay inuu hogaamiyo shacabka Kenyaanka maaska aan qoysaska caanka ka soo jeedin niman garab rarata oo iyagu juhdigooda iyo aqoontooda iyo dadaalkooda position-ka ku soo gaaray iyo niman aabayaashood magac iyo maamuus iyo hanti uga dhintay nimankaasina ay yihiin Raila iyo madaxweynihii Madisay Uhuru waxa kale oo lagu eedeeyaa markasta inuu victim matalo doorasho kasta oo laga badiyo oo ilaa waa la iga shubtay doodaasi iyo dareenkaasi marar badan waxa lagu tilmaami karaa inay dhab ahayd oo 2007 iyo 2017 labada doorashada waxa la sheegaa guldulooyin badan inay lahayd isaguna uu ahaa cidii ku guuleysatay laakiin doorashooyin badan oo kale oo laga guuleystay markasta nin ilaa waa la iga guuleystay oo amba waa la xaday ayuu ahaa taasina waxay hoos u dhigaysaa waxyaalihii uu doodayay dimuqraadiyadeynta iyo in systemka dawladnimo la aamino institutionska la aamino ay ka hor imanaysaa institutionska u doodaysay in la dhiso oo la qoweeyo oo la aamino hadda maalin kasta aad turto aaminaadii dadka aad hogaaminaysay hoos bay u dhacaysaa waxa lagu eedeeyaa amba lagu madalilaa inaanu ahayn qof sugan oo ajendayaal kala duwan ayuu u doodaa dabadana ka riixa nimankii iyo siyaasiyiintii uu shalay ka soo horjeeday ayuu barri la heshiiyaa siyaasadda boodboodka iska leh laakiin waa kritiga loo soo jeediyo xukun jacayl ayaa kamid ah waxyaalaha lagu eedeeyo oo nin 5 doorasho tartamay gudoomiye xisbi mucaarada afartii doorasho u dambeeyay oo dhiyay madax ka ahaa aan ogolayn talada in la wadaago generation-ka dambe siyaasiyiinta lagu wareejiyo xisbiga loo dhiso xisbi institution halku ka ahaan lahaa xisbi qof kaliya iyo family kaliya ku salaysan marka nin ogol inuu ka tago hogaanka xisbiga ma ahayn nin ogol inuu hogaamiyaal kale soo saaro ma ahayn marka sida ODM uu maareeyay iyo xil jacaylkiisii ayaa iyadana kritigiisa kamid ah waxa kamid ah inuu nin qabiiladeed ahaa dadka eedeeya oo yiraahdaan gobolku ka soo jeedo oo kamid ah dadka ugu badan ee codkoogu israaco amba si block u codeeya inuu markasta uu ku ololeeyo hadaynahay Luwa Nyanza xilka weynu ka maqanahay laynama doorto taasina uu siyaasad qabiiladeed amba olole qabiiladeed uu ku hawlan yahay gobolku ka soo jeeda amba dadku ka soo jeedana Kenyaanka waa dadka ugu badan ee si block amba wada socda uu codeeya ma jiraan dad 100% codeeya laakiin portion-kooda ugu badan codkoodu meel israaco codkaasina Raila uu aadi ma jiray generational gap ayay dadku ku eedeeyeen inuu qayb ka ahaa muddada badan ee 50 sano ah oo siyaasadda wadanka ku jiray inaanu cid soo saareen ogolayna cid dhalinyaro oo deegaanada kala duwan ee Kenya ka soo jeeda inay siyaasadda ay soo galaan recordskiisa kala duwanaa mid kamid ah caawa inuu ka sheekeynayno sooyaalkiisa halgan inuu mid ka gedisan leeyahay oo corrupt ahaa ayaa iyadana dadka qaar ay ku eedeeyaan markuu prime minister ka ahaa laftiisa de cases corruption ayaa lagu eedeeyaa isku soo wada duub Raila Odinga nin saameyntiisu ay aad u ballaaran tahay bay ahayd
muddo badanna ay jiri doonto sooyaalkiisana waxa abuuray cawaamil kala duwan oo ka mid yahay qoys ka soo jeedo waa nin ka soo jeeday qoys tala qabeena qoys halgan oo aabihii wuxuu ahaa halgamayaashii xorriyadda Kenya qoys talada Kenya qayb ka soo qaatay madaxweyne ku-xigeen buu aabihaa isna prime minister buu ahaa xabsiga iyo tacadiga iyo cagulujuuleynta uu soo maray ayaa iyadana qayb ka ah marka arrimahaas oo dhan baa abuuray sooyaalka caawa aynu ka hadlayno ugu dambeyn waxaa jira perception dadku ay ka aaminsan yihiin Raila oo horena aynu ugu furfurnay hadalka oo aan nin faashil oo guuldarrada la saaxiiba amba guuldarrada ay walaalay yihiin taasi oo qarisa saameyntiisii amba dhaxalkiisii weynaa dowladnimada Kenya iyo dowlad dhiska Kenya iyo dimuqraadiyiinta wadanka dhowr qodob baana lagu soo koobi karaa amba lagu tilmaami karaa arintaasi inay leedahay culture-ka dadka caadiga ah ayaa ka koowa oo qofka guuleysta ayuun baa muuqda laakiin sooyaalka hadii la daraasayo waxa kamid ah inuu Raila madaxweynayaal badan oo Kenya soo maray isagu uu ka athar badan yahay amba uu ka raad badan yahay waxa iyaduna taa ka qayb ah dadku ka daalay nin 5 teeram soo hor taagnaa oo markasta tartamaya markastana guul daraysta amba hal xado amba hal laga badiyo taasi markaa waxay kor u qaaday dadka dacaayadeeya amba ku dacaayadeeyay inuu wax matare yahay aaminaada dadku ay ku qabaan amba ay ka aaminsan yihiin roolka saameynta leh inaan saameyn yeelan karin adigoo kursiga ku fadhiya mooyaane inaan wax bedeli karin adigoo xukunka haya mooyaane laakiin taa waxa barbar taala in isbedelka saameyn karta uu ka badan yahay uu ka badnaan kara baan ka wada qofka xilka haya taasina waa kiiska Raila oo kale waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta waxa halka aynu iskugu nimid muxaadaro cilmi oo dheer maaha waa guudmar guud oo aynu ku guud marayno sooyaalka dhaxalka ah ee Raila ka tagay Kenya uga tagay gobolka uga tagay Afrikada guud ahaan uga tagay bal inaynu istul taagno dhowr qodobna aynu ka sheegno ugu dambeynna inoo noqoto goob iyo meel oo discussion-keenu uu ka bilaamayo wixii ku darsiye kale aad baad u mahadsantihiin intaasan doonayaa inaan ku soo koobo ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa bahda geeska oo madashan quruxda badan la inoo soo agaasintay iyo ka qaybgalayaasha kala duwan ka soo qaybgalay madashan aad baad u mahadsantihiin wixii su'aalana weyn wadaagi karnaa thank you hadaynu yara soo dhaadhicino taariikhda Raila wuxuu hawday dabcan sad sheegay sorti muxuu ahaa pan africanism marka laga tago guud ahaan oo ku weyntahay afrikaanimada iyo in lagu soo noqdo values-kii iyo qiyamkii ay lahaayeen afrikaanku guud ahaan taasi waa taan filayo marka in ay dhalisay isagoo daneynaya xuduudihii ka horeeyay xuduudihii Ingiriisku ka kacay ilaalintooda iyo duruufaha siyaasadeed soo maray isagoo kaca kufka lahaa iyo in ay keenaan in Somaliland muxuu ahaa wadan ay saaxiib loo noqdo marka su'aashayda runtii waxaan ugu talagalay inaan ku weydiiyo inaan ugu kabi karto taariikhda hore goorta isla jaan qaadnay hadaynu nahay Somaliland abcaada ugu wanaagsan abcaada ugu muhiimsanayd iyo waxyaabaha aad leedahay base bay u ahay taageerada uu hayo Soomaaliya waayo qarsoodi marna ma ahayn inuu kayska Soomaaliya sidoo ugu ahaa muxuu ahaa hormuudka ugu ahaa oo mar aynu filaynaba inuu yimaado muxuu ahaa hadaan u dhicin COVID-19 barigii dunida ka dhicin oo de Muuse u tagay aaskiisina deecriya dhamaanba muxuu ahaa looga qayb galay si guud maxaad leedahay cunsurka mideynayay Soomaaliya iyo isaga mideynayay muxuu ahaa maxaa ku riixay inuu qadiyada ka noqdo muxuu ahaa advocate ka noqdo wadaasas aad iyo aad baan u wada salaamayaa kasoo qaybgalayaasha madasha
waxaan aad kaaga mahadnaqaynaa mawduucaad soo jeedisay. run ahaantii waxaan aad u soo dhaweynayaa in mawduucyada Afrikada aynu wadaagno isirka dhaqan-dhaqaale iyo sooyaalka gumaysi in saas oo kale looga hadlo. waxaad markii horena carabka ku dhufatay wadamada Afrika ee dimuqraadiyadooda aynu wax kaga dayan karno Botswana ka mid tahay. run ahaantii rajeynayo bal in iyadana mawduuceeda maalin dimuqraadiyadda ay martay iyo taariikhdeeda Botswana mar laynoo soo bandhigi karo. marka waxaan abti markaa doonayay inaan ku weydiiyo waxaad ka hadashay sooyaalkiisa iyo legacy-ga uu leeyahay iyo dhaxalka uu ka tagay dimuqraadiyiinta Kenya. run ahaantii nus muxaadarada ka midana waxaa jirtay eedayn iyo dhaleecayn runtii odhan karno inaad mic ku qaadatay odayga Raila Odinga. marka mawduucuna si guud wuxuu channel ahaa inaynu dhaxalkiisa ka hadalno. طبعا ده بناء هو قصة بين قرن ساين تاريخ العينتها إنه السنة وحي قلدلولي ولي هاي لقى حد كرو. مركا هذا سيجود موضوع ديمقراطيين تا أو يدوم يمسن هاي قريسكوليب كما حي هذي سلطة. رايلنا عاد أدو تلمانتي إن لبا قضبة أدو لفرشة كنا عن كرد ديمقراطية ده أي كم تهاي taa dhaxal sugayaasha qoysaska isagu uu aad ugu yahay la oran karo calaamad u taagan iyo ta kale kursiga oo aad la isugu nabo walow una dee kursiba gaadhin laakiin haddana marka la eego qof afar doorasho soo taagan sidoo kale aan ka tegin maxaa heedeen wax leadership oo leaderiste xisbigii maanta la oran karo Raila soo saaray oo waa hogaamiyaal cadcad. marka scale haddaad saartid adigoo qodobadii legacy-giisina eegaya eedeymaha aad soo jeedisay dhaleecaynta uu leeyahayna eegaya ma la oran karaa wax legacy ah jiraba marka horeba. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha koobaad ee ahayd Raila iyo Somaliland xaggee iskala qaadeen runtii meel ay iskala qaadeen kama jawaabi karo. laakiin waxaan dhageystay lecture uu ka jeediyay Chatham House uu sheegayo inuu taageersan yahay qadiyadda gooni-sutaaga iyo gobol-doonka Somaliland. wuxuu sheegayaa inuu wadankeena soo booqday marxaladii cigaal. wuxuu leeyahay madaxweyne cigaal saaxiibkay ayaan soo booqday. marka dowladnimada Somaliland iyo sooyaalkeega waxay mudan tahay in la isbarbar taago ayuu sheegayaa. marka wuxuu ku darayaa in mowqifkaas yahay mowqif shakhsiyeed oo aanan ku metelin Kenya, aanan ku metelin institutions kan aanu ka soo jeedo. shakhsi ahaan buu qabay inuu taageero Somaliland uu ahaa. runtii way muuqatay muddadii u dambeysay Somaliland iyo Kenya xiriirkoodu uu wanaagsanaa inuu markasta uu taageero uu ahaa. kaliya aanu markaa waxaan isleeyahay aragtidayda maadaama uu ka soo jeedo qoys ama qowmiyad sida Soomaalida kala qaybsan dibna aanay ku ahayn kala qaybsanido oo Luo amba waxay degan yihiin Kenya, Tanzania, Uganda. haddii kor loo sii qaadanayo ilaa South Sudan ayay aadaan. marka maadaama aanay dib ku ahayn qowmiyadiisa kala qaybsan inaanu dib u arag inay Somaliland wadan noqoto oo ay dib u soo ceshato dowladnimadeedii 60kii. marka nin furfuran oo hor u socda oo aan dib u arag inay wadamadu ay gooni u istaagi karaan ummad kasto meel deganna ay ka talin karto aayaheega ayuu ahaa. su'aasha labaad horta eedeymaha dadku soo jeedaan dhaxalkay ka mid tahay. dhaxalka maanta aynu dul istaagino ayay ka mid tahay samaan iyo tabniba. horta inuu Raila hogaamiye mucaarad noqdo qayb libaax waxa ka qaatay shakhsiyadiisa. qof shakhsiyad hogaamin leh, hal abuur leh, resilient ayuu ahaa.
waxa ka badnayd intay shakhsiyadiisu ay shape garaysay inuu hogaamiye Kenyana noqdo ayaa waxay ka badnayd intay shape garaysay qoysku ka soo jeedo iyo aabihii iyo madaxweyne ku xigeenka aabihii oo hogaamiyaha movementka Ford ayuu isagu ahaa qofka hogaamiya isu soo baxyada mudaaharaadyada doodaha dadka Kenyaanka ay ugu dalbanayaan in ay noqdaan dal furfuran oo xisaab badan leh marka shakhsiyadiisa iyo kartidiisa hogaamineed ayaa markasta u saamaxaysay waxa kale oo saamaxaysay inuu ka soo jeedo qowmiyad codkooga aanu kala harin markay mucaaradku ay miiska wada tashiga isugu yimaadaan waxa hoggaan noqonaya qofka popularka ah codod aan kala qaybsamin leh markay qowmiyad saddexaad amba afraad ee wadanku aad ka soo jeedo codkooguna aanu kala qaybsamin siyaasadda markay noqotana talabaad ba xagga loolanka marka wadka jaanisyo badnaanaysa hogaamiyaashii kale ee siyaasadeed luuhuna waxaaba malayda dhaqan ahaan waa dadku caana kala dambeynta iyo midnimada iyo isu tanaasulka sida qowmiyadaha kale maaha dad furfuran oo iska rab carara oo u kala qaybsama aragtiyo kala duwan waa dad isku xidhan si kutla ah u codeeya tixgeliya seniority-ga iyo qoys hebel baan soo hogaamin jiray marka taasa uu saamaxaysa amba aan isleeyahay way u saamaxday inuu muddada badan hogaamiye noqdo muddada badanna uu noqdo qofka koobaad ee kula tartama madaxweynaha kursiga haya ilaa intuu geeriyoonayay marka labada su'aalood baan isleeyahay labada jawaab baan isleeyahay kulli way ku habboon tahay wad mahadsantahay soo tahay wixii uu oran karno dhaleecayntii lagu dhaleecay iyo wixii ammaan u lahaa labadaba markaynu eegno taariikhdiisa sidoo ahaa qof kursiga u jeclaa sidii aanu awood isagu u bixin iyo sidii aanu u aqbalin doorashooyinkii wadanka ka dhacay ma oran karnaa inuu ahaa dictator aan awood helin buu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan kaaga mahadcelinayaa Liban sida wanaagsan ee kooban aad noogu soo bandhigtay sooyaalkii hogaamiyaha Afrikaanka anigu su'aal toos ma qabo laakiin waa faallo ustaad Liban haddii uu wax ku darayo faalladaas way ku dari doonaa Raila Odinga waxa uu proof gareeyay sida uu Libanba tilmaamay qofku isagoo banaanka jooga oo mucaarada ama aan magaranaysa xil haynin inuu isbedelka wadanka iyo mustaqbalka wadanku sida uu eekaanayo ka qayb qaadan karo dhinacaasna waxaan oran karnaa waxa uu tusaale loogu soo qaadan karaa kaalinta waxtarka ee mucaaradka waxaad moodaa marar fara badan xisbiyada mucaaradka in loo arko qola baarkin ku jirta oo si ay wadanka wax u taraan sugayeen xilka ay qabtaan oo aad uga maqan tahay in ay ku baraarugsan yihiin in iyagoo mucaarada oo halka jooga ay ka qayb qaadanayaan horsocodka wadanka iyo qaabaynta mustaqbalkiisa iyo koritaanka institutionskiisa iyo hay'adihiisa marka tusaale nool oo Afrikaanka iyo adduunyada kaleba ay u isticmaali karaan waxtarnimada mucaaradka kaalintaas ayuu buuxiyay marka waa iga faalo laakiin hadduu ustaadku wax ku darayo waan soo dhaweynayaa weydiintii ahayd ma laga yaabaa amba ma la isweydiin karaa in muranada fara badan uu ku abuuri jiray amba buuqa uu ku abuuri jiray hanaanka doorasho ma la soo oran karaa wuxuu ahaa keligii taliye qarsoon waxaan qabaa maya waxa daliil u ah muranada qayb ka mid ah garbay ahayd dad badan baa qabay in la dhacay gaar ahaan doorashadii 2007 iyo doorashadii u dambeysay amba tii mid ka horeysay 2017 labada doorasho dad badan oo Kenyan iyo dad badan oo la socda amba diraaseeya siyaasadda ayaa waxay qabaan inuu ahaa qofkii ku guuleystay marka la eego ODM intay xubnaha baarlamaanka ka heshay countiyada intay ka heshay marka haddii uu ahaan lahaa qof xil jecel marka laga tago waxyaalaha dadka qaar ay ku eedeeyaan wuxuu sameyn lahaa inuu wadanka geliyo colaad maadaama seen horena aynu sheegnay uu haysto
loyal voters amba base adag oo qabiil amba qowmiyadeed oo wuxuu yidhaa uu madhaga nugul amba samaynaya taa cagsigeega wuxuu doortay inuu ka gorgortamo wuxuu doortay inuu waddanka xasiliyo wuxuu doortay inuu nidaamka la heshiiyo wuxuu doortay inuu galdolooladii uu ka cabanayay waxyaalo badan la xalliyo waata keentay markaa systemka doorashooyinka Kenya inuu doorashadii ka dambeysay uu ka wanaagsanaado oo commissionku galdolooyinkiisa la xalliyo wixii ka dhinaa lagu kabo xeerarkii uu u baahnaa la sameeyo doorashadii 2007 banaanku isku calaamad saaray the people's president ban ahay buuri waxa calaamad saaray inay isku qoys yihiin oo loo yaro Miguna Mamaleyda oo Canadian Kenyana marka doorashadii banaanku isku calaamad saaray dad badan baa taageeray marka haddii mowqifka ku adkeysan lahaa wadanku wuxuu gali lahaa dagaal sokeeye wadankuna waa wadan qowmiyadeed weeyaan qowmiyada kala duwan siyaasadana dadku ay ku kala qaybsan yihiin qowmiyadaha waa tabteen oo kala waa qabaa'il marka environmentka hadduu loolanku gaadho inay dadku isxoqaan colaado sokeeye iyo xasilooni darradu waa ina daanweyne weeye marka wuxuu doortay kiyo options kaaba leh ay wuxuu doortay inuu nin nabadeed uu noqdo uu dawladnimada iyo systemka dawladeed aanu u burburin waa la dhacay xataa tiyo dad badan ay gar ku siinayaan bata faalada maxamed wuxuu proof gareeyay in mucaaradku ay iyagoo mucaarada ay kaalin muuqata iyo ku darsi wanaagsan ay ku lahaan karaan dawladnimada iyo waxtarkooduba uu kaga badan karaba marmarka qaarkood inay kursiga hayaan waa dhab weeye qofka mucaaradku wuxuu aaminsan yahay ninka banaanka fadhiyo sugaya ninkaas inuu kursiga uga soo dhaadhaco laakiin dad badan ma aaminsan inay taliska qayb ka yihiin taliska siyaasadeed xilka haya kursiga ku fadhiya mucaaradku waa ka qayb weeye waa cidii saxaysay waa cidii toosinaysay waa cidii ogaalka iyo barnaamijka bulshada kor u qaadaysay waa cidii qaladaadka taliska tooshka ku ifinaysay marka nidaamka siyaasadeed waa ka qayb libaax leh ka qaataan laakiin qaybta libaax sidii uga qaataan waa inay roolkooda qaab xilkasnimo oo firfircoon ay u galaan rather than ay ka shaqay lahaayeen inay kursiga aadaan marka Raila wuxuu redefine gareeyay kaalinta mucaaradku waxay noqdeen mucaarad firfircoon siyaasaddu waxay noqotay siyaasad firfircoon oo xalad leh systemka axsaabtu wuxuu noqday system tartan oo maalin kasta war laga sheego si guudna waa u define gareeyay maadaama wadanku aynu soo sheegnay wadan qowmiyada fara badan ay degaan oo waliba wax badan aan kala badbadnayn in coalition lagu tartamo oo coalition kasta cid kasta ay iska dhaxaragto si aan ciidana marginalized ugu noqon oo aanay u tuhminin kursiga laga ilaalinayo amba aanay taliska iyo powerka iyo awood wadaaga aanay qayb ka ahayn marka redefine aba dib u qeexay waxaana lagu tilmaami karaaba inuu kaga kaalin badnaaba talisyadii kala duwanaa hayaanka dimuqraadiyadeed qaybta ka ahaa isagu inuu kaga waxtar badnaa kaga saameyn badnaa kaga sooyaal badnaa marka roolka mucaaradku nidaam siyaasadeed kasta waa muhiim laakiin waa markuu qaab xilkasa ogaal weyni hagayo iyo wacyi siyaasadeed uu ka duulayo weeye wad mahadsantiin